السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خير تمام البودة فهد دنيا كجوكتان كسر دوادة جنال كيجا فوق قبل الديد وحدي هي شاكو أدي وحيس بدن وعد كيلي دونتان شاكدن مقعد وحنوب بحيي إيجاهم سشدي أي كدم بيسي وانكو حبسدي هذا بقى شاكدو وحي أودع ساعة سدتان قبل يويل يا وحس كبرتان برتا فيسبوك حرير كود وحنا نقضي مد أدي ونعكسن wiilku wuxuu ku noolaa dalka Kenya gaar ahaan magaalada Nairobi gabadhuna waxay ku noolayd Ingiriiska London halkan aan joogo waxa qosolka iga soo fukaraya sheekada waxay leedahay ajaa'ib iyo barnaamij aad wax badan kala bixi doonto hobsiimo hal baalasista gabadhii wiilkii sheekadii markii isugu baxday oo sheekadii meel wacan u martay oo gabadhii bahal jacayl qalbiga uu jug jalaq jirum tuluc u dhahay maxaan ku yiraahdaa waxa iyagoo ballansan wiilkii inay u tagto maadaama deeyaa qaaradda waa iska dhib badan tahay Soomaalidana qabyaalad baa macnaha dawladnimadoodii iyo baasaboorkoodii la degtay waa sognahay gabadhii waxaa geeriyootay habaryarteed way u suurtagal weysay marka inay baxdo inay muddo baaqatay noqotay oo caruurtii habaryarteed ay la joogto ay hayso gabar saaxiibadeed gabar ayada saaxiibteeda oo Nairobi u socotay baa waxay ku tiri walaalay bal ninkaas odayga ah iga soo hubi macnaha ku day bal iga hubi ninkaas nin adag inuu yahay in kale gabar saaxiibteeda waa baxday Nairobi tagtay dan kala had familkeeda booqanaysay ninkii odayga ahaa bay dhac telefoon geliso lambar khaldan baa la iskaga dhigayo faarax waxa waaye maxaa ku taqaanay faarax haduusan macnaha uusan nolosha fahmin oo jabab badan uusan la kulmin dumarka la wada sheekaysto faarax waxa waaye offset xun buu galayaa faarax waaba kala babatay gabadha codkeeda macaan iyo sheekadeeda macaan iyo markuu arkay waaba kala babatay oo dhac wada sab ku fiiriyo sawir khatar ah saaran Allah hore wuxuu isdahaniyo barwaaqa ku soo doonatay adigu gabadhii ninkii waa shukaamisay asagana waa shukaamiyey waa la waday gabadhii ninkii codkiisa iyo beebakaasha sawir isoo dir sawir buu dhac waa la soo diray horena waa u aragtay waa hayaniyo ma kula kulmi karaa waaba la kulantay ninkii waxa loo soo dejiyey shakiga gali la Ingiriiska dil yaraada mogti Canada ka yimid baa loo soo dejiyey Canada markii loo soo dejiyey odaygu waaba sii bururayba gabadhii Ingiriiska joogtay ninkii ma maqasho gabadhii kale ma maqasho waxa waa xiriirka waa iska gaabtay gabadh ninkan hadii uu qofta ay soo wacday wuxuu leeyahay baby mashquul ah ilaa baby kale ay maaday baby kale baa timid adigu sheekadii sidii u socotay gabadhii la yiri wax iga hubso gabadhii la yiri wax iga hubso ninkii waaba ka heshay helitaanka sheekadu waaba ka gudubtayba shanta laaba ka xaq iyo adiba ninkii waaba ninkii waa jeclaatay hada jacaylha bay u qaatay faaraxu asagana waxa waaye xabadii waaba ku yaacayba waxaa xigtayba in la is jeclaado oo la isku dhiimo oo xabadii kale xiriirka tartiib ugu yareeyo hadduu waxa idin sheegayo waa qiso runa oo gabadhii ku dhacday iga sheekaysay tartiib xiriirka gabadhii waa uga baxay ninka odayga xabadii kale wada gabadhii kale waxay aragtay in meeshaan wax qaldan yihiin saaxiibteeda soo wacday saaxiibay maxaa jiro maxaa qaldan bal fahansi say wax iga yihiin maxaa iga qaldan niyo bal fahansi adigu gabadhii kale waxay tiri walaalay wiilka aniga wiil fiican oo ilaag yahay wax dhibana kuma arkin ma saaxiib waxba iga qarinaysaa waxa iga qarinayso bal ii sheeg ma walaa waxa ka ma qarinayo adigu sheekadii waa la soo qodqod waa la sii wada markii dambe gabadhii waxay tiri run ku sheega kaas ninku noqon maayo waa nin iska ciyaal siiya waa nin macnaha calooshiisa iyo libiskiisa ku aqliya anigu waxaan kuula talin lahaa inaad iska dayso farxaba ka qaado oo block ah ku qabato masaas baa
haye waayahay saaxiibay ilaah khayr ku siiyo de mar hore inaa iisoo sheegtay ma waa yara mashquulsanaaye waa kaas anuu inaa isku kindaraan diidanaa gabadhii wiilkii blogga dhakab ku siisay habeenkii blogga la saaraya ninkan isagii xarfaanta kale waxaa waaye waaba waxaa waaye xafladii riisaba ee dhigteenoo waxaa waa shiikha loo waco waaba la isnikaxsada habeenkaas maxaan ku dhahdaa hotel shariifka iyo nomad iyo meel loo kala garan waaya habeenkaas la wada jiifay marka dulucda sheekada waxay tahay qofka adiga xiriirka kala dhaxeeyo qofka adiga qalbigaaga uu doonayo qofka adiga aad rabtid macnaha luuq kale ha u soo marin haddii aad doonaysid adigu qofkan inuu daacad ku yahay uu ku jecel yahay uu ku rabo oo nolosha daacad ka tahay in kale aad rabtid inaad ogaatid adigu ogow laakiin qof kale ha u soo marin sababta waxaa kugu dhici kara jabka gabadhaas ku dhacay oo saaxiibtii ay tiri iga soo hubso ay kaga habsatay ninkii wanaagsanaa ee rabay khaladkana ninku waa leeyahay marka anigu aan eego sababtoo ah haddii mid uu xiriir la lahaa middaas inuu iska wada qurux badnayd oo kuma taageersani inuu asaguna meel kale uu lugta la galo haddii aad sheeko haysid aan jeceshahay inaan ka sheekeeyo fadlan ila soo wadaag asxaabta youtube channelkayga ku xiranna sheekooyin badan ayaa idiin soo wadaa waxaan ka codsanayaa inaad subscribe-ka aad igu caawisaan meel walba aad joogtaanna waxaad ilaahay guulaysta waana mahadsanteen